Majallada Forbes ayaa soo saartay liiska dadka ugu hodansan dunida, iyadoo tilmaamtay in dadka bilyaneerada ah ay tiradoodu gaartay 2,755 qof, in 660 qof ka badan intii sanadkii hore. Hantida ay haystaan bilyaneerada dunida ayaa iyadoo dhaaftay 13 trilyan, in 5 trilyan ka badan sanadkii hore. Dalka Mareykanka ayaa ah dalka ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan caalamka, oo dhan 724 bilyaneer, halka Shiinaha oo ay xooli ku socdaan kobaca bilyaneeradiisu oo kaalinta labaad ku jira, asigoo ay ku nool yihiin 698 bilyaneer. Sanadkan oo keliya 210 bilyaneer oo cusub ayuu yeeshay. Shantii maalmood ee kasta 3 qof baa bilyaneer noqonaya Shiinaha sanadkan. Sidoo kale waxa ay soo saartay Forbes 10 magaalo ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan. Dalka Shiinaha ayaa ku yeeshay 5 magaalo, halka Mareykanka uu ku yeeshay 2 magaalo. Magaalada Beijing ee ah caasimadda Shiinaha ayaa noqotay magaalada ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan oo dhan 100 bilyaneer, halka New York oo kaalinta ku jirtay awal ay ku nool yihiin 99 bilyaneer. Hong Kong oo Shiinaha ayaa ku xigta waxaana ku nool 80 bilyaneer. Beijing qofka ugu hodansani waa aas-aasaha madasha madadaalada ee TikTok oo haysta 35 bilyaneer. Hantidiisu kalbar intay tahay ayaa ku siyaaday. Guud ahaan Shiinaha waxaa ugu hodansan maalqabeen lagu magacaabo Shan Shanshon oo haysta 68 bilyan, waxaana ku nool yahay magaalada Hangzhou oo ay ku nool yihiin 47 bilyaneer oo haysta isku dar 269 bilyan. Halka Afrika oo idil ay ku nool yihiin 18 bilyaneer oo haysta isku dar 73 bilyan. Sawirka waa Beijing, caasimadda Shiinaha, magaalada hoygu ah 100 bilyaneer, in ka badan 5 jeer inta ku nool Afrika oo idil. Magaalo ka bilyaneero badan magaalo kasta oo caalamka ah